markaanu seexdo anigoo dhadhawaya kiya dhallaankii ibadii horseedo dadka waan dhibsanaya xubno ka tirsan bulshada Igbo ee Liverpool degan waa dalkan Ingiriiska waxay jecel yihiin inay si joogto ah u kulmaan iyagoo cuntooyin wanaagsan samaysanaya oo dabeetana dheelaya ciyaarta qoobka ciyaarka laakiin waqtigan sabab gaar ah ayay u kulmeen xarunta jaaliyadooda ee loo yaqaan guriga Igbo oo ah guri aan helin dayactir waxa ayna rajeynayaan in dhaqaale dayactirkaasi ay ururiyaan qaaraan ah dadka Igbo waxay dhalashahan ka soo jeedaan koonfurta dhexe iyo koonfurta bari ee Nigeria waxaana kamid yihiin qowmiyadaha ugu ballaaran Afrika aadan saalimiin ayaa inoo haya marka ay Igbo isu yimaadaan waa sida gurigooda oo kale waxa aynu cunnaa cuntooyinka Igbo muusiga Igbo ayaynu cayaarnaa dharka Igbo ayaynu xiranaa xaqiiqdii waxa aynu dareemaynaa inaynu dalkii joogno cuntadu waxa ay ka mid tahay sababta aan iskugu imaanno joogitaankeena halkan ee maanta waan ku faraxsanahay waan iscaawinaa oo aan ismadadaalinaa waan ku faraxsanahay waxyaabaha caawa dhacaya waa wax weyn sidaasi daraaddeed wadajir ayaan uga shaqaynaynaa danta bulshada xaruntan waxaanu yeelanay sanadkii 1988 dildilaaca ku yimid waxa ay keentay inaan la isticmaalin qorshuhu waa in cid walbaahi ay danayso oo aan go'aanno gaarnaa aan dhaqaale ku ururinayno laakiin cid walbaahi waa inay ka qayb qaadataa arrinkan Igbos ahaan waxa aynu leenahay dhaqan noo gaar ah oo wanaagsan oo muhiim noo ah xitaa ciyaalkeena halkan ku dhashay waxa ay leeyihiin laba dhaqan English ah iyo dhaqanka Igbo ee soo jireenka ah marka aynu sidan oo kale iskugu imaano waxa ay naga caawinaysaa in aan isfahamno waxa aan u mahadcelinayaa cid walba oo halkan timid bulshada Igbo waxa ay bilaabatay sanadkii 1935 dadkuna dhaqankaasi midka kale ayuu u sii gudbinayay annagana waa in loo soo gudbiyay waxa aynu doonaynaa in aan u gudbino jiilka da'yarta ah hooyaday ayaa halkan i keenaysay 7 sano ee la soo dhaafay waan jeclaystay daqiiqad kasta oo ka mid ah maxaa yeelay waxa ay isku dayaysay in dhaqankeeda ay ii soo gudbiso qof walbaahi waa uu jecel yahay dhaqankan waa nooc ka mida waxyaabaha bulshadu ay xiisayso waa shay qurux badan